maamulkii waqooyi bari waxa ka socota hambaliyo soo dhaweyn dawladii dhexe ee Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare Xamse oo ku dabaaldegaya magaalada Laascaanood maamulkii Puntland hooyadii fadraha noqotay fadraha ee team Fayris iyo Saciid Huluumba la wareegayna waxa ka baxaysa tallaayi mareexaan oo na soo gaara mareexaan aan ka codsano dibigii cadaa waa lagu soo socdaa waana la ku soo socdaay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh adduunyadii shil baa dhacay shurunshuur xun baa kacay awr wada sharaabtiyo shanballaa dadkii helay xuma shiiqsataa timi doonyihii shimaalkii ardushaam u kicitimay ina shaarub qaytiye sheexa jidka u galay maamulkii Puntland ee 28 sano 30 sano dhisnaa maanta waxa u baxaysa tollaaya mareexaan oo idurugtay cabdiye war mareexaan oo na soo gaara wana la cunahayay tollaay mareexaan ka balanbal la joogiyo cabud waaqow tollaay hasha geela cunta ee cabaada maamulkii Puntland ee soo jireenka ahaa ee miisaanka lahaa maanta wuxuu leeyahay mareexaan oo na soo gaadho inta aanan u gelin Puntland iyo team Fayris iyo xaaladii Puntland maanta halka ay marayso waxaan rabaa horta bogaadinta iyo hambaliyada iyo gobonnimada waqooyi bari ka socota ra'iisul wasaarihii ummadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre wuxuu ka soo degay maamul goboleedka waqooyi bari caasimadiisa magaalada Laascaanood si hambalkeeda wadata gobonnimadeeda wadata darwiishnimadeeda wadata waqooyi barnimadeeda wadata wadaniyada ku dheehan tahay baa ra'iisul wasaariga loo soo dhaweeyay reer waqooyi bari waa hadleen nina duunu ku dhex joogaan nina dhalashu kugu dhaataa reer waqooyi bari maanta waa hadleen waxay u sheegeen ummadda Soomaaliyeed reer waqooyi bari haday cunno u baahan yihiin haday alyoom rabaan mashaariicdii baa loo diiday mashruuci biyaha laga reebay kii korontada laga reebay mashruuci talaalka hadda waxaan arkay odayga ciro oo waxa weeye fiimo quujiyo kooxdu u tagtay Facebook waaba tagteen maxaa la calacalaysan kooxdii carartay ee ku baarlamaan isku sheegay kuwii shantii hargeysa ka dagay iyo fiimo quujiyo ciro soo diray walayn talaalkina waa tileedi ka reebay maanta Xamse idin maxaa maalinta xawaaro si xisaabtaba keenay waaba tagteene maxaa idinka galay waxa imanaya waxa laga reebay reer waqooyi bari hadaba waa hadlay waxay yiraahdeen anagu cunno uma luudino hadaanu cunno rabno oo aanu doonayno lufluf oo aanu doonayno mashaariic yar oo aanu doonayno sankuduul oo aanu doonayno wax dhunta la mariyo de meel walba waa ka heli karnay waxa aanu ka dagaalanay oo aanu diidnay oo kunka wiil ku weyne waxay ahayd ummadda Soomaaliyeed bridge ummadda Soomaaliyeed inaanu nahay horta waxa gabalkeed dhacay wixii loo jiray mashruuc waxa saydiin sheegaya koox qowleysata oo team Fayris Saciid Huluumbe iyo gooni goosatadu ay ka soo shaqeynayeen bahid laakiin reer waqooyi bari kaliya adeegooda iyo xiniyahooda iyo dhabar adeegooda eegay waxa dhigeesinimada lagu sheegay way lacagaha dhulka ku haysid waxa kaliya laga dhaxlay dawladda Soomaaliyeed waa shaabadii midnimada ummadda Soomaaliyeed inay ku dhufteen oo Xamse ku dhuftay intaasaan wax la heli kara caawaad ay kursiga ka dagaan waxa kaliya ee Xamse Cabdi Barre ku baani kara waxa weeye inuu midnimadii iyo waxa weeye bridge-kii ummadda Soomaaliyeed isu hayay ee kala furaay rabay la kala furo inuu adkeeyay taasid waa inta reer waqooyi barina waxa ay shalay u dhinteen u dagaalamayeen u dhiig baxayeen naf iyo maalba ay ku waayeen cunno ma ahayn mashruuc ma ahayn waxa weeye la qodo ma ahayn barkad meel laga sameeyo ma ahayn asallahu caalamuun iyo cusbana masafarba wax kale ma iska daayay mashruuca kaliya mashaariicda waqooyi bari lagu qaadan jiray ee team Fayris iyo waxa weeye kooxda gooni goostada ay qaadan jireen oo sanadaha kaliya baa ka badan waqooyi bari adduunkuna maanta maaha Soomaalidu waxay ku maamaadaa nin waxa soo socda garan waayay waxa joogana ma garto horta reer waqooyi bari jawaabtaas ka bixiyeen fariintaana weydiin soo gudbiyay ninkii cunno u dudayo eegay cidi halkan kuma dhimateen hadii cunno la raadinayo kaas waa qodob
قلب كلابات حمزة عبد البر إلى طرهد عجها الهيست إلى طرهد لوجها الهيست حمزة وهتجين بطلان حفلة بطلان وي هذا ماشي كدكتو وحي هو الشيء قيسا هذا رد بلدك وغوي بر السعودة وحوي الدني قارب وسكتوريا من دي بيسكلينيا وارتجي ما يبي برات حفلة دو هو داو ما أنتو كسودي معمول كده ما بطلان دبلدك بطلان شرفكي بطلان maamulkii 30 sano dhisnaa eegay waftiga u yimi waa laba gabdhood oo buurbuuran qadan gabar la yiraahdo iyo gabar kale oo goosha la yiraahdo iyo shukri baahane in la bacay oo la hoogay baan idin sheegaya Puntland waxa ay ma jiray maalinka Puntland dabaaldegayso wafti caalami ah ma jiray Arab iyo Ajam iyo waxa weeye maamulka Jubbaland maamulka galmudug madaxweynaha galmudug qoorqoor madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ilaa Berk Bel Gaarisa laga iman jiray Gaarisa NFD baa laga iman jiray waxa laga iman jiray Soomaali galbeed Djibouti baa wafdi soo diri jirtay maamulkii sida ahaa waxa weeye ilaa NFD ilaa Djibouti ilaa Soomaali galbeed la isaga iman jiray Yamantu xitaa ka soo qayb gali jirtay Yamanta nimanka meheriyinta liyaadee waxa weeye ticis iyo dhulka degan ay ka soo qayb gali jireen wafdiyada caalamiga iman jiray waxa la keenay gabar gool la yiraahdo gool iyo laba gabdhood oo buurbuuran islaantii qadan iyo gabar kale oo buuran oo la socota oo reer Hargeysa oo TikTok la iyo waxa la keenay BK iyo Shukri Baahane markaas afkii hore la fadhiisiyo xildhibaanadina xagga dambe fadhiyaan wafdigii Puntland horta halkaas maraya gabdho buurbuuran laamiga lagu sidaayo kaamirooyin baa laga duubaya Saciid Hulumbe gabdho u eeg basa u hormar maraya horta Puntland wata balse maxaa dhacay maanta Puntland waxay maraysaa gobolkii mudug hunud baa ka socda team Fayris Saciid Hulumbe kooxdiisii waxa la yiri mareexaan aynu qayladaan dirsan tolaay mareexaanow دبيجي عدا والله صور علي طلعي مريحانو هوي أنا ويرليا هبر قدري قلب مدوق بنا ويرليسا سوق جرمدا حاصل لي يا بناهي عدة ضد كان لا ينسى يعد روح هنشبيسه نيو رمودق ضد كل عدق بيهانشرين محل عي صوتي رمودق ضد عدق بلايع أو اللي بحيانا ولا حتى أنا وياه كتاب كجامعة يقولون كمل حانشر حينا صوتك يورشري واو maxaa dhacay reer mudug miyaa meesha laga raray ma waxa qabsaday reer mudugoodii waxa qabsaday team Fayris ba qabsaday dani inuu qalbada leeyahay Saciid Hulumbe inaanu damiir lahayn inaanu garasho lahayn inaanu caqli lahayn inuu hasha geel cunto cabaada yahay inuu ka arfigta ma xoqdo waxaad ku garanaysaa shalay sidan u lahaa waa before iyo after hadafka u weyn oo aan leenahay waxa weeye inuu san sii joogi karin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilka oo aysan adag tahay in dalkan uu hore u sii socdo hadafka koowaad oo leeyahay waa kaas waxaan rabaa inaan kala shaqeeyo cid kasta oo hadafkaas leh waa hadafkiisa koowaad weey uu nolosha ka lahaa Farmaajo cid kasta oo la dagaalamaysa diyaar baan ahay ninka oo maanta ka calaacalayo uu leeyahay galmudug buu ciidan soo dhigay ciidan waxa jira waxay degan email yaado buulo doore Saciid Hulumbe amar baa la soo siiyay waxa la ciidamada buulo doore jooga way soo dhaqaaqayaan hadii aad gobolka mudug xabad ka ridid tii waxay dhashay in la soo istaago oo saraakiishii iyo taliyayaashii team Fayris ay yiraahdaan tolaay mareexaanow noo soo gurmada bal mareexaanka gurmadka laga raadinayo iyo baroortan baxayso wax yar ila dhigto mareexaan aan ka codsanno dibigii cadaa waa lagu soo socdaa waana la ku soo socdaaye garabka yaga inay istaagtaan baan rabnaa annaga cid aan daandaansanayna ma leh laakiin baryahan waxaa nagu socday fardayn baa nagu socotay sida la fardayn baa nagu socota mareexaanow na soo gaar iidoorna waa la leefleefayaa iidoorna garow waa loo soo rarayaa goonigosadkiina waa la soo rarayaa maamulkii waqooyi bari iyo dhulbahaantana waa cadow waa loo soo raacaya cadow goonigosataa baa loo soo raacaya mareexaanna galmudug iyo habar gidir asallaahi caalamuun ayaa waxa weeye loo baroor diranaya waxa leeyahay mareexaanow naga soo gaara
bal idinku labada isqabadsiya nimankani team virus nimanka la yiraahdo tolkood bay xiniyo u leeyihiin shalay barxadda garow sidan kala ha cid ka soo farmaajo gowracaysa way diyaar baan u ahay waruntii 70 milyan oo dollar oo 60 kamid oo ka qaaday Puntland ayuu hawiye u geeyay hawiyana intuu qaatay oo cunay ku la dheeraysana khayr Allah idin siiyo hawiye war wuxuu libaaxsana inta cunaan oo afka iska mariyeen oo xasanna soo saareen waxa sayir ku soo fadhiso caruur ay dhilo wax dhabay weeyday biir xamsa cabdi barraal ka tagan buu ra'iisul wasaare ka dhigay qalbada ba qaraxday maamulka waqooyi bari baa qalbada qaraxday isaaq buu isku qaaday nimankii reer ayayahay ee gooni goosadka ahaa buu isku qaaday markaasuu goosha iyo guusha iyo qadan iyo BK iyo bruko iyo shukri baaxale iyo bac iyo hoog dhaqaale ku bixinaya dhaqaale yaani wali wala soo dhici waaye nina dhalashu kugu dhaataan nina dhuunu ku dhex jooga anu nin waqooyi bari u dhashay baan hay oo leeyahay ma kala de laakiin qaar dhulbaanto oo la luushay soo ma jiraan oo waqooyi bari waxa weeye ta ka carareen maanta ka soo quruudii Hargeysa dhuuni bay u dhex joogeen laakiin dhalasha ku dhex jooga dhalasho dhaqaale ku bixinay maanta oo ciidan habar gidira iyo buula duure baa liyada meesha buula duure mise buula darre baa liyada buula duure liyada maani sarkaal ciidanka kamida militariga Soomaaliya baa yiri hadaad xabad ku soo ritid ciidamada BSF ee gaalkacyo jooga toos baan ku soo galaya waa bilaabatay mareexaanow na soo gaara mareexaanow kaalay nala dagaalama mareexaanow kaalay hawiye naga qabta mareexaanka ku imanaya ee bila damiirka ah ee bila aqliga ah ee bila garashada ah ee aan iimaan ka lahayn waayo mareexaanka ku imanaya nin walaalkii geed ugu jira baa tahay adaaba cirra tunka ku sitee adaaba gooni gooso tunka ku sitee adaaba ku xumayn waqooyi bari aad xumaynaysa habeenii maalin wadada u taagane mareexaanka aad u barooraysa maxay tahay mid kale niyo markaas qof shisheeya team virus baa la hadlaya Saciid Hulumbe iyo kooxdiisa la hadlayaan shacabka Puntland ee xalaasha la hadli maayaan xitaa anu Puntland ma hanbaliyan maxay hanbaliyaya ma Puntland baa jirta Puntland miyaa jirta Puntland waa bay jirtay maxaan ka hanbaliyaya dadkii gaajo u dhinteen deegaanadii burbur baa ka dhacay meel walba sagaal wuxuu samaystay 23 nin oo ilmaadireey soo baadhul baanta taliyaha kantaroolku waa nin baadhul baanta taliyaha birmadku waa nin baadhul baanta hawlgelinta guud ee daraawish waa nin baadhul baanta ninka ciidamada dhan u qaabilsan madaxtooyada haysta waa baadhul baante taliyaha ciidanka madaxtooyada waa baadhul baante kan RRU waa baadhul baante BMBF waa baadhul baante wax allaale iyo wax ka baxsaday ma jiray arab inta leeg busita meeshan xirab allo xiin mari bulay ma Puntland baa jirta maxaanu hanbaliyayna maalintii la bilaabaye Puntland la asaasay Puntland Arish Dumay may noqotay Arish Dumay kama duwana Puntland waa Puntland maanta waftiga u yihiin shukri baahane eegay iyo gabdhaha burburan iyo BK eeg ay u yihiin wafti weey ma Puntland baa jirta sokeeyaha marka aad isqabataan xiniyeenta la leeg baad la soo baxdaan team virus shisheeye marka aad aragtaan dhali baa idinka jeexma dhali haddaad mareexaan u baroonaysaan mareexaan oo soo gaar dibiga cadaaba la cunaya wala qalaya dibiga cadda baroorta iyo suuraha iyo sinaaxada iyo istilcinta iyo isbihinta iyo oohinta lama arag oo lama maqlay laga sheekeeyaan way Saciid Hulumbe shalay wuxuu yiri boosaasan aaday waa beentii boosaasa ma aadin gaari buu ka haystay saxiimad baa lagu qaaday marka badda taagan baa la geeyay waxa la jiray saakana markabkii buu ka soo dagay niman ciidan oo Africom wax la yiraahdo bagaro wala keenay madaxweynihii oo ka soo noqday magaalada Boosaaso deeqa ma tagin waa been laamigana ma marin diyaaradna lagu ma qaadin Saciid Hulumbe garow uu ka baxay meel dusheeda buu saxiimad laga qaaday masa markab la dul saaray markabkii bay kaga soo dagay iyaguna saxiimadii nimanka askarta la socda saasa waxa weeye ay magaalada ku soo galeen Boosaaso deequ tagay wafdi Mareykan Africom waxa inta sii dheer waxa la yaab leh waqooyi bari baa la dagaalamaya social media loo fadhiyaa waa la caayaya waa la aflagaadeynaya haddana hubkii waqooyi bari baa Axmed Karaash laga soo bariyaya wixii 37 iyo suuqa saafka u taagayay
gooni goostada lagala hadhay eegay iyo qorigii beebaha ahaa way waxa meesha maraya waa hubkii Axmed Karaash way markaas waxa leeyahay ciidamada adduunkii baa yaabay geeska Afrika yaabay ciidanka Puntland iyo quwadooda iyo awoodooda hal gaari oo Puntland leedahay meesha ma marin hal beebana waxa lahaa ninka la yiraahdo Axmed Karaash hal beebana waxa lahaa General Dhukul qoriyay suuga ah ee dunta taagayna waa qoriyay gooni goosadka laga furtay ugaariyahan khaasatan Ali Axmed Karaash jiqda ninka la yiraahdo hubkiisa baa meesha marayay markaas la waqooyi bari waa cadow ha mid baan arkay nacasa oo wuxuu leeyahay fardhiya idiso hambariyo anagu hambariyo ma baahnin waa fashil waa meel lagu bacay oo lagu hoogay oo lagu fashilmay oo lagu tirtirmay oo Puntland waa ku deysay Puntland haday Puntland bari ahaan jirtay waa ku deysay maamulka qura aan maanta leenahay eegay waa waqooyi bari waxaanu doonaynaa inay badbaadiyaan Puntlandna waa waqooyi bari waxaanu ka badbaadinaynaa team virus faan iyo fulaynimo iyo baroor iyo oohin waxaan arkay waa nimankii yiri gaalkacyo biyaha rooba gaalkacyo ka day biyaha fadhiistay biyaha afaruurna baa iyo jaxiyaan u sameeyno haday galmudug galaan dagaal ba dhacaya bari markaas dadkii uuskag lagu dilay uuskag biisay meesha u yeeleen cudurro ka dilaacay waxa sameynaya team virus maanta Mareexaan buu yeeranayaan tallaahi Mareexaan oo durugtay ceebtiye dibigi cadaaba la cunay war adigu liidatay war Sacuudiga gooni goosad kala socda war Sacuudiga waqooyi bari Mareexaan maxaa loo aragtaa farmaajo meenu Mareexaan ahay meenu nin daarood ahay kaarka daaroodnimadu waxay shaqaysaa marka team virus naasaha la qabto xitaa lama dagaalamin wiil sarkaal ah oo ciidamada qaranka Soomaaliyeed ka tirsan oo buladu rebeliyada joogaba telefoon soo waco yiri hadaad BSF weerartaan dagaalka farahan idin gelinaya dhaqmay ba ka tiriba حتى حبده تيم فارس حتى حبده مسوقان نبرك مسوقان يا كوري وهاد باكوري فايف ليال ميرون وي فايف لي حتى بقشين واتيم فارس مريحان بالله عدرتي شلينا مريحان بالله فرماجه مريحان oo gowracayna dhul baanta iyo warsangali iyo halka waqooyi barina waa la dagaalamaya dadka reer Puntland inay idan arkaan oo futadina la arko waa rabay dani ninki wax ka sheegay Puntland wax ka sheegay markaas waxa lagu soo qoriyay waxa xulay borderio de Puntland iyo dani kala saar Puntland iyo dani ma Puntland ba jirta aaway Puntland nacala sijeed iyo soo ruux meeday Puntland aaway Puntland ta aqliga lahayd aaway Puntland wax garad kahay ma Puntland waxa way garowe maanta maxaa ka socdaa wafdiga jooga garowe odagii baan arkayay orgi qoorka dhufaanka ahaa ee maxaa loo rajiray lugator oo shukri bahan iyo gabdho burburan saa dhexda ugu jira wafdigii baa la soo dhaweynaya Puntland waa taa hooyada Puntlandteedii baan ka sheegi doonaa Puntland dad ka sheekeynaysa waa nooca laakiin waxa gul iyo gobolnimo ah waqooyi bari adkaysiga kaliya adayga dadnimada raganimada geesinimada iyo gobonnimadu waa wax loo dhashay dhaxal awood maanta gul la mahadiyay oo dadka Soomaaliyeed mahadiyeen ba waqooyi bari taal wuu khudbaday kari waayay xitaa khudbadii ma aragteen reer Puntland wax khudbad ma aragteen meel Sacuud Hulumba ka khudbadanay ma aragteen wuxuu khudbadeyn waayay inta soo horta ka xishooday sawirku ku hadla maladay wuxuu yiri durwaagi maxay ka nuugtaa maxay isku nuugtaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un laqad maata Puntland laqad maata sariir bay saaran tahay Puntland koomi ku jirta inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un inna lillahi wa inna war soo gaara wareer waqooyi bari oo Puntland gaara wareer waqooyi bari oo Puntland gaara wareer galmudug oo Puntland gaara war mareecaanka loo yeerayo war kaalay Puntland badbaadiya ciidana weerari maysa Puntland kaalay waxan ka qabta inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un guuliyo gobonnimo ra'iisul wasaarihi caawa xaflad lama arag iyo lama maqal waqooyi bari ka socota goonnimada iyo sharafka iyo ciidanka iyo nabadda iyo barwaaqada ilaahu wada ma hadaale ya rabbil alamin war barnaamijka si shargaray khayr iyo baraka ku jiro assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa